waa barnaamijkii sagaalaad ee barnaamijyadii taxanaha ahaa ee aanu kaga hadlaynay taariikhda Soomaalida. aan ku bilaabay haddaba golihii sare ee kacaanku markii talada waddanka ay qabsadeen waxa si firfircoon ay u bilaabeen wax ka qabadkii xagga horumarinta dhaqaalaha iyo adeega bulshada. waxay ku bilaabeen hase yeeshee talooyinkii xagga degmooyinka iyo gobollada inay kala wareegaan saraakiishii haysay oo ay ku wareejiyaan saraakiil da'doodu yar tahay oo ciidamada ka tirsan. bishii Oktoobar sanadkii 1970 ayaa golihii sare ee kacaanku ku dhawaaqay in dalku uu qaatay hanti wadaaga cilmiga ku dhisan. waxa weliba taa lagu lamaanayay iyadoo si xoog leh loo cambaareeyay qabyaaladii. dowladii militariga ahayd markii ay qaadatay hanti wadaaga cilmiga ku dhisan si ay u muujiso inay ka soo horjeedo qabyaalada, waxay ku dhaqaaqday in iyadu mas'uul ay ka noqoto kharashka ku baxaya dadka ku dhinta magaalooyinka ee markaasi magaalada aanay u joogin cid asta. waxa iyadana la dhiirigeliyay in aan mag la kala qaadanin iyada oo la soo saaray sharci markaasi qofkii qof dila loo dilayo. xilligaasi waxa la gubay wax loo eekaysiiyey amaba laga dhigay inay yihiin qabyaaladii, musuqmaasuqii iyo eexashadii oo la aasay markii dambe. ereyga inaadeerna waxa lagu bedelay jaalle. haddaba dhegaystayaal, Cismaan Maxamed Jeelle oo ka mid ahaa golihii sare ee kacaanka kana mid ahaa raggii ugu dhalinta yaraa wakhtigaasi ayaa waxaanu weydiinay markii la qaatay hanti wadaagga cilmiga ku dhisan wixii ku kalifay. saadugsantahay horta rag hadduu meel isugu yimaad oo xukun wadaag yahay oo xukunku u dhexeeyo dee qasab ma horta dhammaan in la wada aaminsan yahay. fikrad kastoo la keeno de kulley ma aha 100% in la wada aaminsan yahay. waxaa dhici karta daan markay qaban inay jireen wax nagu kalifay anigu nin ahaan runtii ma arkaynin, horanu ma arkaynin, haddana mataqaanaa ku oran maayo waa jireen. laakiin kulley sidaa ayaa mataqaanaa loo batay, sidaa ayaanu ku yimid, kulley sidaa ayaanu ku qaadanay. waxaa jira adduunka laba system waktigaa waad ogsan tahay. waxaan la yidhaha systemkan capitalismka ah iyo socialism. socialismka dalal badan baa qaatay oo waxa carabta inteeda badan way qaadan jireen intaan boqorada ka ahayn. laakiin annagu midaan ku gefno waxay ahayd weliba waan sii korino waxaan idhaha hanti wadaaga cilmiga ku dhisan, kaasoo aanan ahayn mid mataqaan munaasab ahayd. xataa kuwii mataqaanaa macallimiinta u ahaa oo ruushkii anigu hadde xiriir ma lahayn oo dadka afyaqaan ma aanaan ahayn, laakiin kulley qaar naga mida ayay aada mataqaanaa adigu isu yaqiineen. waxa ay noo sheegeen inay kala taliyeen kacaanka oo ay yidhaahdeen haqaadanaha waktigiisi ma joogtiin, dadkiinuna ma nagu karayo, dhaqaalihiinuna uma habaysno. marka adigu dooda way iska jireen. haddii sidaa ay leeyihin kuwii macallimiintu waa maxaad inoogu wadaan, anaga wax nagu kalifaya ma jiraan iyo adiguna hala qaato iyo go-aankuna kadib wuxuu ku dhammaaday in la qaato. marka aniga hadaad hayaani weydiiso wax nagu kalifaya inay jiraan ma qabo. ma ruushkaa lafahantiisu idin laha ha qaadanina sida aad sheegtay saaxiibadaa siday sheegeen waddankiinu diyaar uma he? sidaasaa laygu yidhi. waa allah naxariista maxamed siyaad nafsadiisa ayaan dhowr jeer ka maqlay. Cismaan Maxamed Jeelle waxa aanu weydiinay oo kale dadkii Soomaaliyeed ee ay ugu dhawaaqeen golihii sare ee kacaanku qaadashada hanti wadaaggu sida ay u arkeen. gudaha Soomaaliya haddaan horta ka bilaabo dee dadkeenu uma habaysnayn ama waxay u arkayeen hanti wadaagga waxay u arkayeen inay diin la-aan tahay. waana baad mooday fikradahooda kulley un inay sidaa u dhaweed. mar haddii annagu aan sii durugnay aan idhi mataqaanaa waa hanti wadaagga cilmiga ku dhisan. marka ma una fiicnayn gudaha jawaabtii dadweynuhu ama aada ugumayna faraxsanayn. waana dareemi karnay runtii mataqaana kulley un raggu waa wada dareemi kareen mid un haddaan la isdiidsiinayn. maxaa yeele ummadeena waa wada muslim. nin kastoo de hadda anan dhaqanadeeda markaad eegto aada iyo aad ula yaabaysid, laakiin haddana iyad ahaan waa dad muslimnimadu ay tahay waxba waran kartaa waa qabiilkoodaba. inaanu qaadano waxyaaba kasoo horjeedo diintiis aaminsanaayeen wax aada iyo aada u qallafsan bay ahayd. waana runtii kulley muuqatay markiiba.
haddaba haddii dhegaystayaal dadkii soomaaliyeed ee loogu dhawaaqay hanti wadaagga cilmiga ku dhisan ay sidaas iyagu arkeen su-aasha kale ee la isweydiin karaa waxa ay tahay waddamadii dibadda ee muslimiinta iyaguna sidee ayay ugu muuqatay soomaalida hanti wadaagga cilmiga ku dhisan qaadatay aan mar kale idinku celiyo cusmaan maxamed jeele oo isagu ahaa ninkii loo xil saaray inuu soo qanciyo waddamada carabta qaarkood waxaanu yidhi haddii dawladaha dibadda ama islaamka la yidhaah horta waxaana ninkii golaha sare ay u direen dawladaha carabta ah ayaga ayaa ood dhow dawladaha islaamka ah bal si uun loo qaboojiyo waxyaabihii ka yimid oo ka soo dhacay marka waxaan kugu sheegayaa run ahaan markaan waayo aragnimo kaaga warramo iyo goobjoog ahaan ma aanu fiicnayn marka laga reebo dalal ayaga u doodu hanti wadaagga hore u qaatay laakiin anay ku talax tegin oo hanti wadaag bas uun madaxweyne xaafid asad madaxweynaha suuriya oo hore aan isu naqin markii aan u tegey oo u yidhi war asbaan miyaad waalateen ma hanti wadaagii annagu aan la liidanay dadkeena saan uga dhaadhicin ayaad sii kordhisooy haddana mid cilmi kasii dhigteen marka dadkii noogu horrey waayo aragnimo ahaan uu dalal islaama xukumayey oo madax ahaa sidaa ayay intii nasiixa ay noola yaabanaayeen kaasi waxa uu ahaa cismaan maxamed jeelle markii haddaba hanti wadaagga la qaatay ayaa isla markiiba waxaa la bilaabay in la koolkooliyo maxamed siyaad barre amaba magaciisa la dhiso sidii ka dhacaysay waddamadii kale ee hanti wadaagga ahaa sawirradiisii ayaa meel walba lagu wareejiyey isaga iyo nimankii aabbayaasha u ahaa mabda'aasi ee marx iyo lenan waxaana la tiriyey gabayo iyo heeso badan oo maxamed siyaad barre lagu ammaanayo dhegaystayaal haddaba maxamed siyaad barre ammaantiisu ma koobnayn waxaa loo bixiyey magacyo badan oo ay ka mid ahaayeen aabbihii ummadda aabbihii garashada iyo guulwada siyaadba askartii haddaba talada qabsatay waxay ururiyeen carruurtii agoontahayd iyo kuwii iyaguna iska dabadyaalka ee aan haysanin cid taakulaysa waxaana la geeyey xeryo waxbarasho iyo taabaro lagu siiyo oo ay ku noolaadaan xagaagii sanadkii 1972kiina waxaa la abuuray ciidamadii la odhan jiray guulwadayaasha oo badankoodu ahayn dadaan wax shaqaa haynin oo suuqa laga soo ururiyey markii haddaba la qaatee hanti wadaagga cilmiga ku dhisan maamulkii dhaqaalaha ee dalka dawladda ayuu gacanta u galay dawladdii milatariga ama kacaanka haydna waxa ay qaramaysay shirkadihii gaar ahaan loo lahaa iyo wax soo saarkii dhinaca beeraha waraysi uu b b c da siiyey maxamed siyaad barre wakhtiyadaasi oo lagu weydiiyey waxa dawladdiisu ay dadka baac mushtariga ugala wareegtay shirkadaha maxamed siyaad barre waxa uu ku jawaabay jaalle gabar baa walaalkeed naas ka qabtay waxay tidhi naaska walaalkay qabtay hadba waa saan ka dhigta waxaan haatan annagu leenahay markaanu taa yeelaynay ummadda soomaalida oo badan maslaxadeedaan ula soconay marka haddee ninkii beecushariga ahaa waa hadba suu ka dhigta haddii uu taas u gartana waa nin fiican haddii uu keligay aan noolaada inta kale ha dhimato isu gartana isagay jirtaa laakiin annagu danu nagama hayso waxsaan ku leeyahay ninkii haddii xoolaha lahaana horay baan ula hadallo waxaanu nidhi u leexo xagga warshadaha oo annaguna aan kaala shaqayno oo dawladda nafteeda ha kaala qayb gasho oo sheer ha yeelato ama qaar ha yeelato
kuwii shaqaalaha ahaana dawladda tanba shaqaalaha leh dawladda nafteedaba iyagaa leh shaqaalaha iskale iyo dhalinyarada yaa iskale dadka naga waaweynu bacdamaa ay yihiin dadkii carruurtaas aan sheegahaya dhalay danba annagana waajibkanaga wey inaan carruurtii korino oo weynayno oo iyaga mas-uulkii u gudbino anaan annagu meeshii haysaninoo keligana anaan xukumin barnaamijkii qaramaynta ahaa ee ay ku dhaqaaqday xukuumaddii milatariga ahayd ee maxamed siyaad barre waxaa fikradaheeda waxqabad ay ku fulin jirtay barnaamijkii la odhan jiray iskaa wuxu qabso hase ahaatee amuurta ugu qiimaha badnayd ee ciidamadii talada dalka qabsaday ay fuliyeen oo laga yaabo inuu ruux kastaana ka marag furo waxay ahayd qoritaankii farta soomaaliga oo la qaatay xuruufta laatiinka sannadkii 1972 maxamed siyaad barre oo ka hadlayay in af soomaaliga la guddoonsaday in la qoro kahor intii aan la hirgelinin waxa uu yidhi gunnimo cilmiya ama tacliina wax afka hooye aan ahayn oo naga bixin karaa ma jiraan marka taas markaan garanayna cilmigii kale waa badan yahay waana ballaaran yahay wixii lagu baran karaa waa afka hooyo mid kale laguma baran karo taasaa kaaga bixin karta jahaalada amaba addoonnimada cilmiga kaa saari karta marka saa darteed afka hooyo ayaanu dhigaynaa waktigii ku odhan maayo barnaan dhigayna iyo saddan baan dhigaynaa kuma lihi waxaanan kuu lahayn waa wax ka dhexeeya guddiyaalka ama dawladda ka dhexeeya inay u fadhiistaan iyagoo maalin hible yidhaahdaan oo gooyaan may anigu kuma aan maalin hible ku dhihi maayo laakiin waanu dhigaynaa kulligannana walow anaan goynin maalin fulaan waa isku ogolnahay wax kale oo soomaaliya ay uga bixi karto aqoon darrada ama gumaysiga cilmiga ay uga bixi karto afka hooyo ma jiro marka waa dhigayna kaasi waxaa maxamed siyaad barre oo ka hadlayay qoritaanka afka soomaaliga in ay ku talagaleen ay sameeyaan haddaba golihii sare ee kacaanku waxa uu ku dhaqaaqay inuu fuliyo sidii af soomaaliga loo qori lahaa waxaa markaasi la sameeyey guddidii ugu horraysay waxaa ka mid ahaa guddigaasi loo xilsaaray arrintaasi oo tiradooda ahayd 21 cabdi daahir afey oo imika degan waddanka australia yuusuf garaad oo waraystay mar sanadkii aynu ka soo gudubnay dhammaadkiisii booqasho uu ku yimi magaalada london ayaa waxa uu weydiiyey bal inuu ka warramo si kooban taariikhda af soomaaliga ciddii isku dayday in ay qoraan qaar ka mid ah waxaanu ku jawaabay yuusufow anugu intaan ka ogahay ama raggii aanu soo wada shaqaynay far soomaalidu muddo dheer bay soo qaadatay in la qoro rag badan baa isku dayey ilaahay naxariistii ha siiyo raallina ha ka ahaado sheekh yuusuf kowneyn ayaa ugu horreeyey sida aan taariikhda ku maqlay ama ka sheeko qabo in af soomaali waxa la yidhaaho bal horta ama uu qoraal galo ama cod yeesho ama wax lagu qabto waa ninka soo saaray alif la kordhabay alif la hoos dhabay alif laa goday wuxuu isku dayay dadkii soomaalida ahaa si uu qur-aankii u xafadsiiyo oo ay higaadii u dhigaan u yeersadaan oo ay iyagu gacantooda qoraalkii marka loo yeeriyo qur-aanka ay iyagu gacantooda ku dhigaan waxaa ku xigay sida aan taariikhda ku hayo cismaan yuusuf keenadiid in la yidhaaho reer hobyo ah ayaa isna fartan cismaaniyada la yidhaahdo soo saaray waa far soomaali xuruufteedu tahay oo shaqalladeedii iyo shibanayaasheediiba soomaali yihiin fartaasuu isna nin gabayaabuu ahaa waxaa ku kallifay isagana in uu gabayadiisii u samaysto wax uu meeluu ku xafito iyo qoraal uu ku xafido waxaa ku xigay oo raggii iyaguna qaybta weyn ka qaatay naxariista allaha siiye muuse galaal ninka la yidhaahdo iyo brofesor andrewiski ninkii ingiriiska ahaayee isna ahaa yaa kontomaadkii iyo ka hor baan u malaynayaa inay ahayd iyo iyaguna far latiina muuse wuxuuba igu yidhi marka hore carabi baan isku dayey inaan wax ku sameeyo se yeeshee markii sukay qabsan weyday ayaan u leexday xaggan fartan scriptiga ama xuruuftan ba'tada ingiriisiga inaan wax ku sameeyo aniga ninkaasaa iska kaashanay inaanu xuruuf latiina aanu wax ku samayno waxaa iyaguna kusoo xigay halkaas ninka la yidhaaho shiro jaamac isna wuxuu ahaa nin fartaa latiinka ah wax ku qorqora oo raggii isna ku xigay buu ahaa waxaa kaloo isna ku xigay brofesor ibraahim xaashi naxariista allaha siiye
ninkaasoo isaguna fartan carabiga ah oo wax ku qori jiray oo iqtiraax ah macnaha ra'yigeeda soo jeediyey in fartan carabiga la qaato waa fartii qur-aanka waa fartii diinta ku soconaysa alifkeena iyo afkeenana halka aan ku dhigabuu doodiisu isagana ahayd waxaa jiray nin la yidhaaho cabdullaahi insaaniye oo isna farta latiinka ah isna soo jeediyay iqtiraaxeeda in wax lagu qoro waxaa isna jiray xuseen sheekh kadare nin la yidhaaho isna oo far alifba'deedu soomaalita isagu uu iqtiraaxeeda iyo ra'yigeeda lahaa ayaa iyadana jiray 8 farood ayaa tartankii markii guddiga laysu keenay farahay oo ahaa saldhigga waxyaalihii ay ka shaqaynayeen farihii meesha lasoo dhigay saldhigga ahaaye laga doodaya tee la qaataa 21 nin yaa marka hore yaa magacooda lasoo saaray goorma bishii koowaad kowdeedii 1971 bay ahayd waqtigaasna la magacaabay cabdi haddaan meesha ka dhex galo guddiga soomaaliga la sameeyey 1971 dabcan dhowr jeeroo dambe ayaa guddigii wax laga bedelay laakiin markaa u horreysay la magacaabay dadkii kugula jiray wax ma ka xusuutaa haa rag badan baan ka xusuusnahay horta ninka la yidhaaho doctor shariif saalax maxamed ninkaas wuxuu markaa guddigana la magacaabay guddoomiyihii jaamacaddu ahaa isagaana nalooga dhigay guddoomiye halkaas raggii maalinkaas ayaantaa la magacaabay waxaa ka mid ahaa yaasiin cusmaan keenadiiq muuse galaal anigana cabdi daahira maxamed shirin ina shiragaab la yidhaaho maxamed shirin la yidhaaho axmed cali abakor aw jaamac cumar ninka la yidhaahdo cabdullaahi insaaniye shire jaamac brofesor ibraahim xaashi xirsi magan xuseen sheekh kadare 20 intoodii kale maskaxdeeda hadda way ka maqan tahay qoraalkiina ima hor yaallo tallaabooyinkii golaha sare ee kacaanku ay ku dhaqaaqeen waxaa ka mid ahaa sidii ay u samaysan lahaayeen dad waxyaabaha ay wataan u hoggaansan shaqaalihii sare ee dawladda iyo ardaydii jaamacadaha ka soo qalin jabisay iyo kuwii dugsiyada sare ka baxay ayaa iyagana lagu ururiyey xero milatarigu uu hore u lahaan jiray oo la yidhaah xalane looguna magacdaray askari ku dhintay magaalada togwajaale dagaalkii ka dhacay sannadkii 1964 kaasoo dhex maray etoobiya iyo soomaaliya askarigaasi xalane oo la dilay isaga oo badbaadinaya calanka soomaalida markii ciidamada etoobiya ay soo galeen magaalada togwajaale ciidamadii NSS-ta ee sirdoonka gudaha ayaa iyagana la sameeyey oo ruux walba isha ku hayay wixii dallacaad iyo casilaad ahna waxa ay ku fadhiyeen wixii wara ee ay hadba soo gudbiyaan waxaa xoogaystay in ciddii wax ka sheegta dawladda milatariga ah iyo barnaamijkeeda lagu sifeeyo afmiishaar waxaana taasi ay dhalisay ciddii hadal cadiba in dalka ay dabadda uga baxdo oo shaqo ay ka raadsato taasoo iyaduna keentay in maskaxo aqoon badan lahaa oo dalka wax u tari lahaa ay waddanka dabaddiisa u baxeen hase yeeshee culayska dadku uu dareemay waxaa ka horreeyey in golihii sare ee kacaanka lafahaantoodii ay iskhaarajiyeen markii bishii julaay sannadkii 1972 laba jenaraal oo ka mid ahaa golaha sare ee kacaanka la dilay waxa ay ahaayeen jenaraal maxamed caynaashe oo madaxweyne ku-xigeen ahaa iyo jenaraal salaad gabayre oo dad badan oo golaha sare ee kacaanka ku dhowaa ay sheegeen inuu ahaa nin qayb weyn ku lahaa in milatarigu talada dalka uu la wareego haddaba sannadihii 1973 iyo 75 kadib markii la qoray afka soomaaliga waxaa dawladdii milatariga ahayd ay bilowday ololayaal wax qoris-la'aanta iyo wax kharis-la'aanta lagula dagaalamayo oo magaalooyinka iyo miyigaba laga fulinayo bishii juulaay 1974 ayaa 30,000 oo ardaydii dugsiyada sare iyo macallimiintoodii waxaa loo diray dhulka miyiga ah ee dadka ruurguraaga ay joogaan iyo beeralayda si markaasi ay u soo baraan sida loo qoro loona akhriyo farta soomaaliga waxaa ardaydaasi la raaciyey shaqaale kale oo xagga caafimaadka xoolaha iyo dadkaba ah hase yeeshee olayaashaasi waxaa ku soo beegmay abaarihii ugu xumaa ee ka dhaca taariikhda soomaalida waddankaasi dawladdii soomaaliduna ma ay qarsanin dhibaatadaasi abaaraha sidii etoobiya ay yeeshay oo kale
haddaba ardaydii loo diray inay dadka soo baraan far soomaalida ayaa waxaa markiiba loo qaabeeyey inay isku dubaridaan xeryo dadkii abaarahaasi ku tabaaloobay la isugu geeyey abaartaasi oo ka dhacday gobollada waqooyi ee soomaaliya dad ay tiradoodu gaadhayso 200 kun oo qof oo reer guuraaya ayaa hawshaasi waxa ay suuro gelisay in lagu ururiyo xeryahaasi tallaabadii ka dambaysay ururinta dadkii abaarta ku tabaaloobay waxay ahayd in loo raro dhulbeereedka koonfurta iyadoo lagu daadguraynayay diyaarado ruushku ay leeyihiin iyo gaadiid kale oo dhulka ah waxaana ka mid ahaa meelaha kumanaankaasi qof la dejiyey degmooyinka kurtuwaarey sablaale iyo dujuuma waa tahay dhegaystayaal barnaamijka maantana intaa ayaanu ku joojinaynaa waa inoo kulankeena dambe oo ah axadda soo socota